madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa dhalinyarada Soomaaliyeed ugu hambalyeeyay sanad guuradii 77 ee aasaaskii golihii dhalinyarada Soomaaliyeed SYL ee horseeday xornimada dalka Soomaaliya. madaxweynaha ayaa tilmaamay doorka wanaagsan ee dhalinyarada Soomaaliyeed ay maanta ka qaadanayaan horumarinta dalka, hogaaminta ciidamada qalabka sida iyo dadaalada nafurnimada leh ee ay bixinayaan halyeeyada bahda caafimaadka oo dhalinyaro u badan, kuwaasi oo naftooda iyo noloshooda u huray sidii ay dadkooda uga samata bixi lahaayeen cudurka COVID-19. waxaa maanta oo ku aadan 15 May halkan aan ku xuseynaa sanad guuradii 77 ee ka soo wareegtay aasaaskii golihii dhalinyarada Soomaaliyeed ee SYL. waxay mahad u sugan tahay allihii 13 dhalinyaro ee aasaasay ururka SYL ka dhaliyay Soomaali, horseedna uga dhigay hogaaminta iyo kamira dhalinta halgankii muddada dheeraa soo socday ee keenay isku duubni, dulqaad, adkaysi, wadajir, midnimo iyo wadaniyadda shacabka Soomaaliyeed, sababna u noqday in lagu guuleysto taabagelinta dad xor ah, dal xor ah iyo dowlad shacabkeeda ay ku faanto oo karaamo iyo sharaf ku leh ummadaha kale ee caalamka. maanta 77 sano kadib, dhalinyaradu maxay ka baran karaan tusaalooyinka SYL? maxay dhalinyaradu maanta ku mutaysteen xaaladda cakiran ama dhibka ay ku jiraan? maxay dadka ku hadaaqaya ama ku dhawaaqaya qabyaaladda u hayaan mustaqbalka dhalinyarada Soomaaliyeed ee maanta jooga? annagoo aragnay cashar fiicanna ka helnay 30 sano ee ugu dambeeyay khasaaraha ay lahaan karto in qabyaalad iyo wadajir la'aan ay jirto. dhalinyarada waa rajada kaliya ee dalku leeyahay. dalkuna waa hodan, dadkiisuna waa sabool. waxaa looga bixi karaa saboolnimada dhalinyarada oo israacda oo ka shaqaysa dowladnimo, wadaniyad, wadajir iyo horumarka dalka. dadka waxa looga baahan yahay dulqaad, dowladuna waxa ay ku hogaaminaysaa rabitaanka shacabka oo ku dhisan dimuqraadiyad iyo doorasho xalaal ah sida dalalka hore u maray. dowladdu waxaa ka go'an in tallaabadaas ay hore u qaado sida aan uga shaqeynay dowlad wanaag, waxqabad, wada shaqayn iyo ammaanada ummadda in aan loo isticmaalin dana gaar ah. maanta waxay ahayd inaan dabaaldegyo waaweyn ku maamusno taariikhdeenna dahabiga ah, balse duruufaha uu sababay cudurka safmarka ah ee COVID-19 ayaa naga hakiyey. dhalinyarada Soomaaliyeed maanta iyagaa hormood u ah dadaalka xooggan ee dalka looga samata bixinayo cudurkan COVID-19 oo saameyn xoog leh ku yeeshay caalamka. waxaan rabaa inaan munaasabadan aan uga mahad celiyo halyeeyada bahda caafimaadka ee dhalinyaro u badan, kuwaasoo naftooda iyo waqtigooda u hibeeyey sidii ay ula tacaali lahaayeen bukaanada uu soo ritay cudurkan. sidoo kale dhalinyarada Soomaaliyeed waxa ay maanta hogaaminayaan dagaalka aynu kula jirno argagixisada Al-Shabaab oo caqabad ku ah rajada iyo mustaqbalka dalkeena. hoggaanka shaqaalaha rayidka iyo ciidamada qalabka sida maanta waxay u badan yihiin dhalinyaro aqoon-yahano ah oo firfircoon, kuwaas oo isbedel muuqda ama la taaban karo ku sameeyey shaqaalaha dowladda iyo ciidanka qalabka sida shaqo iyo niyad ahaanba. dowladda Soomaaliya ayaa joojisay munaasabadaha maanta oo kale loogu dabaaldegi lahaa munaasabadda 15 May sababo la xiriira khatarta cudurka coronavirus. maxamed cali weheliye, Universal TV, magaalada Muqdisho. sidoo kale madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya waxa uu khudbadiisa 15 May uu ku sheegay in dowladdiisu diyaar ay u tahay in doorasho xor ah ay ka dhacdo Soomaaliya.
waxaa kaloo madaxweynuhu uu ka warramay duruufo adag oo uu sheegay in dalka Soomaaliya ay ku gadaamnaayeen xilligii uu talada qabtay isla markaana waxa uu tilmaamay in guulo la taaban karo ay xukuumaddiisu ka gaadhay duruufahaasi waxaa xaqiiq ah in dawladdu ay dhaxashay xanaan dhaqaale oo aad u hooseeya deymo tiro badan oo culays ku hayay horumarka dalkeenna xaalad aad iyo aad u adag oo ay ku noolaayeen kumanaan dhalinyaro Soomaaliyeed oo qaarkood ay ku dhibaataysnaayeen xabsiyo shisheeye iyo xarumo qaxooti waxaa dawladdu xoog saartay soo celinta adeegga aasaasiga ah oo maqan dagaalanka musuqmaasuq baahsan oo curyaamiyey soo kabashada dalka dhammaan arrimahaas oo caqabad ku ahaa rajada dhalinyarada iyo qorshayaasha awoodsiintooda ayaa dawladdu ka howlgashay oo ku guulaysatay inay wax badan ka qabato waxaa xusid mudan inaan dib u yagleelnay hanaan maaliyadeed oo hufan daahfuran kana caagan musuqmaasuqii baahsanaa ee jiray kaasoo sababay inuu kor u kaco dakhligii dalka iyo kalsoonidii caalamka ay ku qabeen hanaanka maaliyadeena muddadii 3 sano ahayd ee la soo dhaafay waxaan ku guulaysanay inaan ka soo baxno dhammaan shuruudihii hortaagnaa dalkeenna oo aanu jabinay darbigii cunaqabataynka dhaqaale eena saarnaa muddo 30 sano ah si dalkeenna looga dulqaado deemankii faraha badnaa taasoo ifaalo wanaagsan u ah mustaqbalka dhalinyarada dalkeenna maadaama ay horseedayso kobaca maalgashiga iyo fursadaha shaqo sidoo kale dawladdu waxay ku guulaysatay inay dalka ku soo celiso boqolaalo dhalinyaro ah oo ku dhibaataysnaa xabsiyada shisheeye iyagoo maanta si sharaf iyo karaamo leh ugu nool dalkooda dawladda federaalka Soomaaliya waxaa u degsan qorshe 5 sanadooda oo tilmaamaya meeshii aan shalay ka nimid heerka maanta aan marayno ama aan joogno higsigeena biri iyo himilada aan doonayno inaan gaarsiino shacabka iyo dawladnimada Soomaaliya waxaa hubaala dhalinyarada Soomaaliyeed meel kasta oo ay joogaan inay farxad gelinayso guulaha taariikhiga ah ee aan ka gaarnay qorshayaashii dib u habeynta hay'adaha amniga joogteynta xaqsiinta shaqaalaha dawladda kobcinta dhaqaalaha awoodsiinta dhanka siyaasadeed ee dhalinyarada dib u habeynta hay'adaha garsoorka iyo cadaaladda dhiirigelinta maalgashiga iyo soo celinta maqaamka siyaasadda arrimaha dibadda ee maanta ku tilmaaman inay tahay mid ka turjumaysa rabitaanka iyo aragtida shacabka Soomaaliyeed